asiguna waxa ahaa nin oo hoogiis ilmihiisa u shaqaysanayo wuxuu waday mootada loo yaqaano feekoomta xalay waxaa la dilay 12 bishii 14aad maanta aan joogno bisha 15 bishii 9aad ninkaas waxaa rabnaa cadaalad muhiima inay helo ra-iisul wasaare hadalkan cadaa kuwada ninkaas wax dilay kama dhalan 9 bil ku dar kama dhalan aniga kama dhalan 6 bil 7 bil kama dhalan isku mid aanahay ninka maanta wax dilay waa la yaqaanaa waa jooga wallahi waa la yaqaanaa waa jooga ninkaas waxaa rabnaa in la noo soo saaro ninkaas wuxuu yaalaa isbitaal Madiino oo yaala miidkiis shal waxaa la dilay 14 marayso bishii 9aad ilaa xad laga joogo 15 bishii 9aad 24 saac miidkiis yaalo cadaalad la'aan xaq daro loo dilay ninkaas walaalkeen waxaa rabnaa in cadaalad uu helo illa cadaalad aan ka helna in la aas doonin marba la aas doonin wallahi waa aas doona haddii ninkaas oo cadaalad helin ra-iisul wasaare ku heeyaa waa hadalku waa maqluysaa si fiicana u maqluysaa hadalkay ninkaas waa walaalkay maanta dhibka loo dilin waa ogtihiin 5,000 lacag ma ahan 4,000 10,000 maanta lacag ma ahan waxaa idinku codsanayaa anigoo ah hawu korisay Said Maxamed inaa walaalkay cadaaladiisa dhiigiisna meel lagu sheego waxaan loo dilay 10,000 ilaa 11,000 shilin Soomaali loo dilay ima hayo marka guri aad tagay leeso waxa la dilay waxa la dhahay walaalka cali macalin waa la dilay yaa diliyaan waxa la dhahay walaalka askar aad dishay 5,000 shilin in $1 inta u dhaxaysa loo dilay intaas ka horaya marka waxaan codsanayaa walaalkayga meedkiisa inuu cadaalad helo ilaa hadda walaalkayga cadaalad ma helin isbitaal ku jira filinjeero ku jira ilaa cadaaladaas laga helayna ma aasin aniga cadaalad rabna bis ra'iisul wasaaraha aabaq u dirayna asaa dhahay ana madax ana wadanka ana mas'uulka ra'iisul wasaaraha waxaan ka rabnaa cali macalin muuse buraale inuu cadaalad helo wax kale ma ka rabnaa aniga bis isagan gardaradaas uu adkaysan waa u diiday markuu diidayna badu ku dhuftay isla meeshuu ka baxsaday iyadoo ciidankii u jeedaan taliyay uu og yahay shacabna meesha ay wada joogaan markaatiyaal ay leeyihiin marka familkiina ay yiraahdeen waan idin soo garaabayna waa imaanayna say noo meermeerinayeen ay imaan waayeen meesha dawladda waxaan ka rabnaa inaanu cadaalad u helno ninkan walaalkeena oo dhintay dawladda iyo sharciga in loo wada simnaado aad u wanaagsan marka taasan baa ku jeedin lahaa